culayska ugu badan saarnaa waa anaga qof ka dhimanaya qof ka dhaawacmaya dhiig baa loo baahan yahay dawa loo baahan yahay meel laba aan istaagay marka culaysku waa anaga uu saarnaa waxaana si wanaagsan wada shaqeynayay isbitaalada barayfadka iyo dawliga markiiba system baan xidhnay in bukaanka daryeelkiisa dawladdu waxay qayb weyn ka qaadatay suduuh runtii alla khayr siiyay agaasimaha isbitaalku in dawada gaadhada ay xitaa barayfadka siiyaan marka ilaahay bayna waa asturay runtii ilaahay alxamdulillah rabbil alamin in ka badan ba insha Allah aduguna adeer halkan aad nala joogi caafimaadkaaga weyn ka warhayn ishaas waxay noqotaa jawaabtina hay noo timaado dhakhtarkana weyn la joogi insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaanu guuleysano adna intaaga aan waxba noqon ilaahay waxaan ka rajaynaynaa fasalka inaan waxba noqon insha Allah billaah runtii islaax baad ku jirtay waxay ahayd wax nabadeyn baad waday umad baad kala badbaadinaysa dhiig baad badbaadinaysa wallahi waan ogahay waan ognay marka adeer Allah idin garab galo insha Allah qoladina caafimaadku gurmad fiican baad ku jirtiin ilaahay ha idin garab galo annaga laftayda odayaal baan oo barayfad baan ku shaqeynaa waan isku ducaynayna ilaahay waan idin bareynaa wixii naga dhimanay naga xun ilaahay inoo hagaajiyo in kab iyo wax loo sameeyo maaha maskaxdana waan 100% just hadda dooyin baan ku siinayna infection markuu barku naga dago ayaa waxay la taabanaya inta ka horeysa darees baa lagu sameeynaya waa la dhayaa meesha ma garatay way hagaagaysaa wax walba hagaagayaan waxaan ma insha Allah taala dhakhtar muwaarib oo iman doona iyo intiga insha Allah wuxuu eegi doona marka waxaan u bilaabay oqor safta kan dooyinkan u qoreen hadda waxaan u bilaabaynaa dooyin qalajiyo xoog badan iyo ka bixiya baraka dejinaya